عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواada samawada filmis asxaabay magacaygu waa Ibraahim Nuur Sagaale maanta waxaan idin wadaa maanso aad iyo aad u macaan oo ka hadlaysa hooyo macaan asxaabay hadda channelka ku cusubtiin subscribe saara hadda wala ugu jirteen like saara video share gareeyana aad iyo aad baad mahadsantiin kusoo dhawaada barnaamijka inay ayaantii horaa'een saragnay cisqigaad abuurtay ayaa igu ekaadoon ama ka qaado nafsidii irdee الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkan waa samawada filmis magacaygu waa Ibraahim Nuur Sagaale oo taqaanaan abwaan Sagaale Chikay asxaabay dhamaantiin waan idin salaamay salaanka bacdi asxaabay maanta waxaan idin wadaa maanso aad iyo aad u muhiim ah maansadaas oo ka hadlaysa hooyo macaan iyo faa'iidada ay noo leedahay inaan dhageysano insha Allah asxaabay waxaan naga xasuusinaa channelkan haddaad ku cusubtiin subscribe noo saar gambaleelkana furo like gare share gare haddaba war ugu jirtayna like saar videoga share gareena aad iyo aad baad mahadsantiin ku soo dhawaada maansadii oo fidsan maansadan waxaan kaga hadli doonaa hooyo macaan hooyo waa laf dhabarta bini aadamka maansa waxa jirta waran kaga soo hadalay waqtiga inaan kaga soo hadalay waxaan ka wadaa warwaaqada ilaahayna siiyay iyo sida ayna uga faa'iideysan ama inna wax xasuusnay walow ilaahay uu quraankiisa ku yiri wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum min adaabil shadiid bini aadamka hadaad baridid oo intaad wax weydiisatid aad baridid kula laabatid wuu ku nacayaa laakiin Allah subhanahu wa ta'ala baryada qofku ka barya badan yahay ayuu ka jecel yahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka inta badan wax weydiista waana ka aqbalaa waana jecel yahay ma sha Allah marka waxaan dhamaantiin horta idin xasuusinayaa inaad Allah subhanahu wa ta'ala ka baqdaan kuna xirnaataan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax kastood rabtaanna aad Ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiisataan walow aad hadda sanadahan dambe arkaysaan qofka ciladi ku timaada ama xogaa wax si ka noqdaan inuu hay'adaha samafalka iyo hay'adaha gargaarka Ilaahay baa gargaar leh uu u qayliyanayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa gargaar leh soonowna hay'adaday ku timaado Allah ayaa kugu soo dhiibay iyadu ismaysan abrin amar Ilaahay xaqiisa ayaa ku dhacay sida awgeed markaste furaha koobaad ee aad wax ku heli kartaa waa baryada Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo badisid okay maanta waxaan ka hadlaynaa hooyo inagoo isdul istaagi doona hooyo waa maxay hooyo iyo hooyo maxay awlaadeeda seebay ula dhaqantaa iyo maxaa hooyo farxadeeda okay bal halkan nagala soco hooyo waa hogaankii naftiyo ogal kaliileede waa hagar la'aan noloshay kugu hagaysaaye habaar kuma quuliyo waxaad dhab u hadlaysaaye adoo hooyay ku leedahay adoo huriyay laabteeda hal waxaan u dirayaa dhalinta haatan soo kacaya halla waxaan u dirayaa kuwii hore u sii joogay hooyo waa halbowlaha naftiyo hagaha nolosheenna waa hibo ilaahiya nimciyo horumarkii dunida hiddo wacan ayay kugu korshaan iyo hodanti joogta mar walba horumarkaaga ayay jeceliin hanti waxay ku bixiyaan wixii horumarkaagiya hoos iyo kor bay kala socon sidii horweyn geela horay soco ayay kugu dhaxdaa qaraariya habeenkaad hamiga gaadhid bay ku hambalyeeyaane ummad yahay hagaha noloshiyo hooyaha la dhowro ummad yahay hagaha noloshiyo hooyaha la dhowro saabay maansadii hooyo waa maanso mug weyn leh wayna yar tahay laakiin macnaha ku jira ayaa badan walow ay wax yar oo mataqaanaa nadiif ah ama faa'iido leh ay baraka badan yihiin ayna wanaagsan yihiin intaan wax badan oo waqti ku luma aan akhrin lahayn marka asxaabay maansadaas hooyo ayaan maanta idin soo diyaariyay waa inuu kilibka xiga hadduu eebba idmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu fadlan subscribe saar gambaleelkana furo sidoo kaleeto waxaan ka rabnaa like inaad saartid si
videogan ay dad badan asxaabta kamid u daawadaan sidoo kale to share garee share ayaa iyadna laga rabaa aad ba u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.